بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأمهات. دوردي أن سوّدني إن شاء الله تعالى maanta waxaan soo gaaray gabagabadii iyo guntii waxaan maanta nala jooga oo noo soo gabagabayn doona insha Allah ta'ala muxaadarooyinka laba sheekh laba daaci oo iyagu saaxiibo ah oo iyagu saaxada dacwada ka muuqda Kenya guud ahaan ducaada qaar intooda badan waxay ku kooban yihiin Soomaalida, laakiin labadan sheekh Ilaahay ha barakeeyo waxa weeye wadanka dhan ay joogaan oo dacwada ka wadaan. waxaan ku faraxsanahay runtii in badan oo ka mid ah dadkan wadanka degan ee aan ugu imaanay inay gacantooda ku soo islaameen. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leeyahay Ilaahay barakeeyo. muxaadarada maanta waxay ka hadli doontaa insha Allah ta'ala dowrka haweenka ay ku leeyihiin dhisidda bulshada. marka labada sheekh iyaga ayaa soo jeedin doona insha Allah ta'ala. marka aan dhageysano waxaan noogu xigi doonaa markay saa u dhameeyaan sheekh Maxamuud Shible ayaa noo iman doona iyo fatwadii aan ku soo khatimaynay dowladda insha Allah ta'ala. barakallahu fiikum, jazakallahu khayr. marhaban bikum ya sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الأكبر، لا راد لما قضى ولا دافع لما قدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر. ولا ليال وهرين إلهي بمهاتسن سبحانه وتعالى إن بدن بوينه نسيي نمعوين آدو تربدن إن بدن إنو برواقيي وحا آن هيسنة برواقعة إن كسوغنه نمعاهنا إنو قرتيو إنو قدقي سبحانه وتعالى. إلهي وحيد جل جلاله وما بكم من نعمة فمن الله. waxa aad ku sugantihiin eed haysataan eed hanateen oo barwaaqiyan nimco ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaggiisay ka ahaadeen. Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ina siiyey inoogu deeqay wuxuuna inugu waajibiyey Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan uga shukrino nimcooyinkaas oo qowlkeenna iyo ficilkeenna iyo xaaladaheenna oo dhanba ay ka muuqato kuna jirto shukrin aan u shukrinayno إلهي سبحانه وتعالى. مرك إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ودنا استقاله يمعوينك إلهي لوجا شكريا واد دائما هدي شكري جساري وكفري اللي جوب بدلنا وابان إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينا إنه كوا شكريا نقدره شكري أنا نجا أقبله نمعوين كان نوجود دائمي سبحانه وتعالى شكري أنا بليه باس ودنبو ينوجا حجابه ينوجا هيو جل جلاله. إن شاء الله تعالى waxaan in yar wax ka oran doonaa mawduuca sheekha doctorka Khadir uu sheegay oo ah gabadha muslimadda ah iyo dowrka ay ku leedahay dhismaha ama dhisidda bulshada. walaalkay sheekhaygana Sheekh Maxamuud Sheekh Aadan Markoonina waa iga dambayn doona biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. islaamka gabadha wuu sharfay. إلهي سبحانه وتعالى كرامه إيالي نبي عليه الصلاة والسلام شرف بو إيالي إني مجتمع دستو كليا وحقوق فلان إن لو قبا هي إني كتوسيسو هلك أي كرامة يدو قارسي سنتهي شرفت إي عزي الدين تو أي سيسنة إي قارسي سنتهي. إلهي سبحانه وتعالى دينتي سوحون قطسي دور قابوذي دور سيابك للدون oo gabadha muslimadda ah lagu sharfay karaamadeeda lagu koryeelay sharafteedana lagu xoojiyay. waa mid koobaade cunsurka dhadiga ah إلهي سبحانه وتعالى
wuxuuba xukumay oo qadaray si socodkii iyo tarankii iyo jiritaankii bulshada la raba inay wax ka dhisto inaan ayada looga maarmin oo qayb weyn ay ka tahay oo haddii la rabo inay bulshadii sii jirto ubad uu yimaado hooyadii waa lama huraan weeye lagama maarmo waa loo baahan yahay halkaasay ka soo bilaabanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء محيا هيدي آدم آبهن آدم عليه السلام يهويدن حاوى رضي الله عنها إني إسوي مادان أو إنه لشا وداغان بيكاد علاتي إن أنيجي أديغنا ما أنت هل كان شوغنو بني آدم كأردنا وشرو وترمو marka bulshadii iyo mujtamacii jiritaankoodiiba hooyada qayb weyn bay ka tahay oo waa lagu xidhay waxay ku tusinaysaa mudnaanta iyo maqaamka ay leedahay waa mid labaade ahkaamtii diinta markii loo yimaado iyo shariicadii iyo ku dhaqankeedii iyo adkaynteedii iyo nooleynteedii gabdhihii ragga lagu lamaaniyay inama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal wa kayri subhanahu sallallahu alayhi wasallam markay ahkaamtii tahay ku dhaqankii diinta tahay shariicadii tahay ragga jeexooda iyo gabalkooda wayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii laga rabay waa laga rabaa waxyaalihii lagu kala duway ma ahaane wanaaga markii la sameeyana wixii lagu mudanayo abaalmarina ayaguna waa mudanayaan waxba laga baqsi maayo gabdhaha man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah qofkii amal wanaagsan sameeya labiyadii ku dooni ha ahaado asagoo mu'mino ilaahay rumeeyay nolol wanaagsan baan nooleynayna wixii uu shaqayn jiray oo uu sameyn jiray abaalgudkooda dhammaystiranna iyo abaalmarintii oo waxba laga dhiminna waan siinaynaa buu ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala marka halkaana maxay ahayday gabdhihii sharaftoodii iyo karaamadoodii waa lagu ilaaliyay maqaamkoodina waa lagu ilaaliyay intaad sida ragga dadaashaan bay waxay heleen wax ka yar baad helaysaa lama oran halkaana waxay ku tusinaysaa maqaamka iyo booska la gaarsiiyo la dhigay gabadhii waxa lagu sharfay islaamku ku sharfay nolosheedii in la ilaaliyo sida nolosha ragga ay muqaddas u tahay oo nafta ragga ay macsuum u tahayna teedana inay macsuum u tahay islaamka ka hor waa la aasi jiray waa la leyn jiray islaamku markuu yimid waa la diiday arrinta noloshoodii waa la ilaaliyay sida taragga loo baahan yahay in loo dhowro ayaa toodana loo dhowray waa karaamo iyo sharaf islaamku soo kordhiyay waay dhaxalkii baa wax laga siiyay sidaas oo kale waa loo diidi jiray maxay ahayday waa laga qadin jiray laakiin islaamkii waxbuu ka siiyay dhaxalkii maray ragga la siman tahay maray ka badan tahay maray ka yar tahay qaabkay qaybtu noqotaba inaysan ka qadaynin ba ilaahay subhanahu wa ta'ala xukumay nabiga sallallahu alayhi wasallam xoojiyay taana waxay ku tusinaysaa booska la dhigay iyo maqaamka iyo sharafta gabadha ay leedahay sida loo dhowray sidaas oo kale gabadhii inay wax barataa loo ogolaaday oo nabiga alayhi salatu wasalaam markuu yiri cilmiga in la dalbo waa waajib muslim walba saaran muslimiintii bay kamid tahay waajibka uu saaran yahay inay cilmiga ayadana barato aqoontii qaybteeda ay ka qaadato oo aan loo diidin oo aan jahliga dhax fadhi aan la oranin ayaa ayadana waxay ku tusinaysaa sharafteedii iyo karaamadeedii in lagu ilaaliyay gabadha marka dowrka ay dhismaha bulshada ku leedahay wuxuu ka soo bilaabanayaa marka hore ayadii wax dhisaysay inay ilaashan tahay ayadii wax dhisaysay si loo dhageysto inay sharaf leedahay inay karaamo leedahay markaasay marka saameynteedu gudbaysaa waay saameynteedii markaasay gudbaysaa islaamka ka hor lama dhageysan jirin waxba lagama qaadan jirin waxba lagama soo qaadi jirin laakiin quraanka waxaad ku arkaysaa gabdho inta hadlay tabashadoodii iyo cabashadoodii iyo hadalkoodii la waariyay suuratu qad samc baad akhrinaysaa maalan haweenay suubanaha u timid sallallahu alayhi wasallam oo sheeganaysay sheegashadeedii baana looga warramay oo la waariyay ahkaamtii ku tacalluqdayna maxay ahayday si fiican baa halka loogu dhigay marka gabadha inay sharaf leedahay inay karaamo leedahay qayb weyn oo bulshada kamida inay tahay cunsur jira inay tahay inay hadli karto
inay wax gudbin karto inay wax bari karto waxna baran karto islaamka intaasoo dhan wuxuu inoo iftiiminayaa karaamada iyo qiimaha gabadha muslimadda ay leedahay buu inoo iftiiminayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waariyey dumar maxay ahayday bulshada wax ka dhisay saamayn ku lahaa ayagu naftooda toosnaa buu ilaahay waariyey subxaanahu wa tacaala saameyntooda ha noqoto mid dadban oo in lagu cibro qaato sidoodoo kale la noqdo ama mid toosa ha noqoto tay ahaataba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waariyey qisooyinkooda maryama binti cimraan oo kale aan akhrinaynaa suurad dhan baa loogu magac daray qisadaydii baa si fiican loo faahfaahiyey waa laga warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u doortay gabadha inay mucjizaadkiisa qayb ka mid a ayada ay soo maraan ay ka muuqdaan wiil bay dhashay aabba la'aan ilaahay subxaanahu wa tacaala risiq gooni ah buu siiyeyoon xilligaa la helaynin waa ka warramay qur-aanka waxaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku faahfaahiyey si loogu cibro qaato saamaynteedana loo waariyo loo raajiyo oo saamaynteedii iyo barakadii ka timi nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo diinta siduu wuxuu u qabtay iyo mucjizaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa tusinayay ee uu ka muujiyey waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan karaamada iyo sharafta gabadhaasu ay leedahay islaamku siduu u waariyey tusaale si looga qaato looguna cibro qaato ilaahay wuxuu nooga warramay aasiya xaaskii fircawn buu ilaahay ka warramay siday mu'minadu ahayd diinteeda sida ay ugu dhabar adeygtay ilaahay subxaanahu wa tacaala darajada iyo maqaamka uu gaadhsiiyey ducadeedii iyo baryadeediioo la aqbalay rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin haweenayda ayadana saasaa looga warramay waa la waariyey qisadeeda in lagu cibro qaato saamaynta ay leedahay akhlaaqiyan iyo iimaaniyan iyo bulshadu say ugu dhismi karto hadday gabdhuhu gabadhaas oo kale noqdaan ba ilaahay subxaanahu wa tacaala kala dan leeyahay in ayadana looga warramo waxaa la waariyey qisadii haajaraa la waariyey xaaskii nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam weliba maxay ahayday dadaalkeedii ka dhashay iyo qisadeedii calaamadaheediiba ilaa maanta jira oo tiirka shanaad oo tiirarka islaamka ka mid ah lagu dhaxayaa ilaa maanta orodkii safiya marwo dhexdoodu ay oroday baa ilaa maanta jira biyihii ayada ilaahay ku karaameeyey oo ayadii iyo wiilkeedii ku quudiyey ayaa markii dambena uunkoo dhan waraab looga dhigay oo barako badanna la geliyey si ay gabdhuhu ugu tusaale qaataan waddadii ay qaaday oo iimaanka iyo alla kacabsiga iyo istoosinta waddadaa inay qaadaan oy ku saamoobaan ayagana meesha ay gaadhay say u gaaraan sharafta iyo karaamada ay yeelatay si ay u yeeshaan gabdhaha marka islaamka maxay ahayday bulshada gabadha inay qayb weyn ku yeelato dhismadeeda ayuu ka shaqeeyey kana bilaabay karaamadeedii gabadha inuu xoojiyo waariyo say u saamayn kartaa marka gabadha bulshada qaabkee bay bulshada u dhisi kartaa dhismaha bulshada see bay uga qayb qaadan kartaa dhowr qaab waa midda u horraysay waa hooyo tarbiyadii meeshay ka bilaabanaysay waa ayada bulshadii meeshay ka dhismaysay ka bilaabanaysay oo meeshii ugu yaraydoo familka ahayd ayada tarbiyadeeda looga baahan yahay al-ummu madrasada u horraysa iyo meesha qof walba uu wax ka soo bilaabay oo ku indha kala qaaday waa hooyo waaye waxaan ha samaynin waxan waa ceeb waxan waa sax waxaan iska daa dhagahaaga markuu ugu horreeyey maqleen hooyay ka maqleen tarbiyadii ugu horraysay hooyaa ku siisay bulshaduna waxay ka dhisantaa oo ka bilaabataa familkay ka bilaabataa hooyadii baa marka maxay ahaydee udub dhaxaad u ah dhismihii familkii iyo jiritaankiisii iyo hagaaggiisii hadduu asagii hagaagana bulshadii inteydii kale marka waa hagaagtay hooyadii marka wakaa tarbiyadii iyo dhismihii bulshadii qaybtaasay ka qaadanaysaa qaabka kale gabadhu bulshada dhismaheeda uga qayb qaadan karto waxa weeye in ay ayadii inta wax barato dadkiina wax barto aqoontii gudbiso cilmigii ay baratay gudbiso طلب العلم فريضة على كل مسلم بيرسوبناها صلى الله عليه وسلم أقونت إن للدلبو أو للراديو وفرل سارن قف والبو مسلمة قبردي مركا إذن ساسو كلا إني أقبشو وركا إني أقونتي كدداشو إني وحبرتو مركي برتانا أي دادك أقود بيسو بلشدة إني أقونتو كد حفافتو إلا أقونتو وإفتيني إني كشقيسو مركات فيرسو السيرة دي قبله سوبنا سيدة هويدن عائشة رضي الله عنها
saamayntii ay yeelatay intaasoo kun oo axaadiis bay nabiga ka warisay sallallahu alayhi wasallam markaasay haddana sheekhad weyn bay ahayd fatwada la weydiin jiray aqoontay faafin jirtay saxaaba u soo xireysan jirtay oo cilmiga ka qaadan jirtay oo weydiin jirtay marka gabadhii saamaynteedina qayb bay ka tahay dhisidii bulshada ay dhisaysay aqoontii markii ayada yeelatay inay gudbisay oo dadkii bartay jaamacadaha maanta adduunka ugu cariiqsan jaamacad kamid ah waxa aastay gabar maxay ahayd muslimada oo Faatima la oran jiray baa aastay jaamacadaas waa jaamacadaha maanta ee reer galbeedku ku faanan xataa waa ka qadiimsan tahay waa ka horeysay waxay ka shaqaysay marka inay bulshadii aqoon yeelato waxay ka shaqaysay oo fahantay inay bulshadii qaybteedii ka dhisto waajib inuu ka saaran yahay halka markii iskama aysan fadhiisan guriga iyo kijadan ku ekahay maysan oran ee jaamacada laga wada aflaxay bay aasaastay mujtamaci inuu dhismana qayb weyn bay ka qaadatay marka qaababka ay ku dhisi karto ay ku saameyn karto gabadha waxa kamid ah inay inta wax barato waxbarashadina ay gudbiso waxa kamid ah dhismaha ay bulshada dhisayso taxadiyaadka bulshada la soo gudboonaada ama cunsur bulshada saameyn weyn ku leh la soo gudboonaada xalinta la xalina inay qayb ka noqoto tusaalaha noloshii nabiga fiiri sallallahu alayhi wasallam iyo siiradiisii suubanayd markii ugu horeysay jibriil uu nabiga u yimid alayhi salaatu wassalaam oo waxyigii lagu soo dejiyay uu suubanaha naxay oo argagaxay sallallahu alayhi wasallam oo maxay ahayd nabiga alayhi salaatu wassalaam uu khadiija u yimid radiyallahu anha way garab istaagtay ilaahay ku hoojin maayo waxbaad la baxdaa qaraabadaad xiriirisaa qofna ma dhibaataysi suuban oo afiya adinba sallallahu alayhi wasallam way kaxaysay ninka ilma adeerka ahaayeen waraqata ibn nawfal bay u geysay waa u waramay nabiga alayhi salaatu wassalaam ninkiina nabigu qalbiga u dajiyay waxa ku yimid waa wixii ambiyadii ka horeeyay u iman jiray qofka ku yimidna ama ciida ku timidna waa ciidii ambiyadii ka horeysay u iman jirtay diin cusub iyo diin waxyi baad la timid ila aakhirihi waa lagu la diriiri doona waa lagu saari doona wixii buu uga waramay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas suubanuhu inuu u fahmo sallallahu alayhi wasallam oo dejintiisii qayb ay ka noqoto arintaas waxa qayb weyn ka qaatay hooyadii khadiija radiyallahu anha dowrkeedii bay qaadatay halka kuma istaagin dacwadii waa garab istaagtay xoogeedii iyo xoolaheedii waxay haysay dacwada waa ku garab istaagtay dhibaatadii dacwada loo maray qaybteedii bay ka qaadatay markii goolkii lagu cuna qabatay nabiga alayhi salaatu wassalaam iyo intii la socotay ama rumayn ula socotay ama ehelnimiye qaraabo iyo maxay xoojin ula socotay qayb bay ka ahayd oo way gashay ilaa halka dhibaatadii ka soo raacday saameyntii ka dhalatay ay u geeriyootay radiyallahu anha wa ardaaha marka gabadha taxadiyaadka bulshada ku imaanaya inay wax ka xaliso ka qayb qaadatana qaababka ay bulshada u dhisaysay ka mid tahay saasoo kale hooyadan salama radiyallahu anha maalinkii xudaybiya oo nabiga alayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadiisii cimrada inay ka soo noqdaan ay noqotay oo nabigu uu faray halkan ku xalaal noqdo waa la iska noqonayaa oo saxaabada xoogaha arintii ku cuslaatay taladii lagu kala badbaado adkaydo amarka saxaabadu inay qaateen sabab u noqotay hooyadan salama bixisay radiyallahu anha soobano adiga marka hore xiiro adiga bilow waa ku raacayaan waa kugu dayanayaan nabiga bilaabay sallallahu alayhi wasallam xiirashadii xalaal noqoshadii talada marka saa u weyn oo sida u culus oo maalinta saxaabadu ay kaga badbaadeen arrin khatar oo cisyaana inay ku dhacaan waxa ilaahay sabab uga dhigay hooyadan salama radiyallahu anha marka qaababka ay bulshada u dhisaysay u saameeynayay gabadhay kamid tahay taxadiyaadka yimaadiyo culeysada yimaada qaybteeda inay ka qaadato inay xalliso ay waajahdo gabdhuhu xataa jihaadka ka qayb qaadan jireen duulaanka bulshada lagu soo qaado difaac la difaacay inay qayb ka noqdaan bay maxay ahayd u banbixi jireen umuamaarad garanaysaan iyo maalinkii uxud waxay dhigtay iyo sidee dagaalka uga qayb qaadatay radiyallahu anha marka maxay ahayd qaababka baa kamida qaababka ay gabadhu mujtamaca u dhisi karto dowrkeeda dhisha bulsho dhisidana ay si adag u xoojin karto uga qayb qaadan karto waxa loo baahan yahay marka gabadha muslimadda inay fahanto mas'uuliyadda saaran mas'uuliyad yar inaysan ahayn mas'uuliyadda saaran mas'uuliyad sahlan oo fudud inaysan ahayn bulshadaas oo dhan baa ku sugaysa inaad qaybtaada ka qaadataa loo baahan yahay dowr adag inaad ka ciyaartaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka in aad ugu dhawaato bulshada dhisideeda inaad ka qayb qaadato oo marka hore adiga aad hagaagto
akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaayo gabadha muslimadda looga baahan yahay inaad adiga la timaado fasaalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah gabadhii gabar toosan inay noqoto gabar ayada saalixadoo wanaagsan inay noqoto gabar ilaahay u hogaansantay mutiica inay noqoto gabar odageeda iyo zawjkeeda ka dambaynayso maqlayso ilaalinaysa nidaamkii mujtamacii wuxuu ku dhismi lahaa inay noqoto inay sharafteeda iyo karaamadeeda ilaaliso ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii la rabay inay u noolaato uu afaray inay u noolaato inay ogaato dhismaha bulshada qayb weyn bay kaga aadan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari halkaa gabadha muslimadda ah raggii bay la mid tahay markii bulshada la hagaajinayo gabdhaha mu'minaadka ah iyo ragga mu'miniinta ah ayagaa isu xigta ah ayagaa isu sokeeya ah ayagaa isu garaba ayagaa ismudan maxaa marka astaamahooda ka mid ah wanaagay faraan xumaantana dadkay ka reebaan xumahoo dhan way ka digaan way ka dhiidhiyaan way ka dagaalamaan mujtamaca xumaan inay ku dhex faafto way ka damqadaanoo ma oggola wanaagga oo dhanna waa xoojiyaan garab iyo gargaar bay isugu yihiin salaaday oogaan sakadii bay gutaan ilaahi iyo rasuulkiisay ateecaan abaalgudkoodu marka waa maxay gabdhaha iyo maxay ragga sidaa ah ulaa'ika sayarxamuhumullah ilaahay baa u naxariisan doona naxariis ilaahay bay mudan doonaan marka gabadha inay sidaa u fahanto bulshada dhismaha la raba inay dhisto qayb weyn bay kaga aadan tahay qaybtaydii marka inay qaadato dowrkii laga rabayay dhabta ahaa inay qaadato waxyaalaha marka ka hor iman kara ee waxaa ka weecin kara ama ka leexin kara gabadhu inay ka digtoonaato maanta caqabaad badan baa gabadhii ku yimi muslimadda ahayd weerar badan baa ku socda looga dan leeyahay iska daa bulshadii inay wax ka dhistee ayadii in lagu dhibaateeyo diinteedii lagu burburiyo akhlaaqdeedii lagu burburiyo maxay ahayday saamayntii wanaagsanayd ay yeelan lahayd gabadhii meesha in laga saaro waxaasoo dhanna waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay ka fuujigan tahay inay ka digtoon tahay inay iska ilaaliso waxaana loo soo marinayaa maanta waxa ugu weyna loo soo marinayo waa bahalka gacanta inuu ku wada sidanay teleefanka ah social mediahii iyo imtixaankii afkaarta khaldan oo dhan halkaas inay ka qaadato feminismkii wixii la midka ahaa oo looga gol leeyahay gabadha in lagu burburiyo akhlaaqdeedii lagula dagaalamo saamayntii bulshada ay ku yeelan lahayd ee positive-ka ahayd negative in loo bedelo waxaasoo dhan marka gabadha inay ka digtoon tahay oo iska ilaalisaa loo baahan yahay oo ay ogaato bulshada inay wax ka dhisto in looga baahan yahay waxyaalaha burburinta bulshada qaybta ka mid ah ka qayb qaadanaya ee social mediaha iyo wixii ka dhalanaya ee afkaar khaldan iyo wixii la mid ah oo looga dan leeyahay gabadha in hadafka looga leexiyana gabadha ay iska ilaaliso walaalkay sheekh maxamuud markoorin aan uga baxo asaga halka iga fara dhudhuumane inuu inoo sii faahfaahiyo social mediaha iyo caqabaadka ka yimid ee feminismkii wixii la mid ah oo gabadhii hadafkeedii looga leexinayo bal inuu inoo sii balballaadhiyo biidni illaahi tacaala anigana kelmaddiida halkaa aan ku koobo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aan gafay ha ii dhaafo wixii saxayn sheegayna anigana miisaanka xasanaadka ha ii saar hana igu anfaco idinkana ha idinku anfaco rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وصحبه وآله والحمد لله رب العالمين.